casriyeynta taliska qaybta mudane madaxweynaha ku soo dhawow. waxaan rabaa marka hore inaan aada iyo aada ugu mahad celiyo ciidanka booliska qaybta jubbada hoose guud ahaan booliskaba taliyahooda iyo wasaaradda amniga oo shaqada qayb badan ka ahayd inaan idinka mahad celiyo shaqada joogtada ah iyo xaqiiq ahaan iyadoon maanta dareemayo wax badan oo muuqanayo dhab ah waxaan inayna ku ekayn boolisku waa xiriirka u dhexeeya dowladnimada iyo shacabka sababtoo boolisku hadduuna jirin xiriirka shacabka iyo mujtamaca bulshada lala leeyahay wuu go-aya iqdaac baa gelaya sidaa daraaddeed muuqaalka muuqanaya ama ha noqoto saldhigga aan furaynay ama ha noqoto stationka hadda aad soo jeediseen ama ha noqoto dee inta aan ka ogahayba oo hawsha ugu muhiimsan oan isleeyahay maanta waxay faa'iido badan iyo waxtarba u tahay maanta shacabku ay dareemayaan waxqabadka boolisku uu leeyahay iyo sida mujtamaca ay bulshadu raalliga uga tahay boolisku milatariga iyo daraawiishta iyo nabad sugidda iyo kulli uu ka xigaad shacabka sababta waa cidda ugu dhow ee maanta ay isu soo buusayaan dadka shacabka wixii soo gaadha ama baahidooda ama dhibkooda waxa ugu horeeya ogaadaa waa booliska xogta magaalo iyo bulsho waxa ogaadaayay waa booliska asal taa marka waan idinka mahad celinayaa waan u mahad celinayaa taliyaha Sadiiq aan odhan kara intii uu joogay saameyn toosa iyo wax muuqda oo cad baa ka muuqanaya isbedelada iyo waxa sababta qofku dee wuxuu la yimaadaa lagu qiimeeya idinka saraakiisha ana rag badan oo wajiyadooda garanaya gabdho badanna waan ku qiimeyn doonaa waxaan rabaa marka hore inaan idin ballan qaado dalacaad inay jirayso weliba si deg deg idiin soo gaarayso oo ay noqonayso aad baan ugu faraxsanahay bulshada marka maanta ay fatahaad dhacdo waxaa laga hadlayaa maanta booliska waxay ku qaybinayeen baarsanguun tuulaheb sababtoo askarigu adiga iyo ka shabaabkii maxaad ku kala xigaysaan hadduuna ogaanin xilliga uu dhiban yahay waxaad adigu u tarayso hadduuna garanaynin macnihii dowladnimada qofkani waxay ku tahay dowladnimadu wax isaga soo gaadhaya taasaa macno badan u samaynaysa markaa shaqadan waxaa laga yaabaa inay mararka qaarkood idinla fududahay wax yar hadda ka hor baan ciidanka kulligood waa isku mid daraawish iyo boolis iyo nabad sugid iyo raashinka iyagu cunayaanba intay qaadaan bay shacabka siinayaan la degan markay duruufta ay timaado ood maqlaysaa ciidankii raashinkii ay karsadeen maanta waxba kama hayaan miyaa la siiyey shacab baa la siiyey dee hooyo iyo carruur wadata agoona iyo ilmo yaryar oo ismaqada oo hooyo urla oo socota raashin miyaad cuni kartaa adoo aad karsata taa marka waad ku ammaanantihiin waan aad baan u bogaadinayaa waanan isku dayaynaa inaan ciidanka hadda deegaanana waan soconaynaa waayo ciidanka hadda loogu talagalay inuu meelaha la qabtay shabaabka gacanta ku dhigo hayo maanta meelahan joogno o dhan cidda shacabka iyo ciidanka udhexaysa waa boolis waan badin doonaa saldhigyada haddii ilaahay yidhaahdo ciidanka booliskana waxaan rabnaa inay noqoto ciidanka mar walba muraayadda u noqonaya dowladnimada oo qofkan shacabkii uu dareemayo dowladnimada soo gaadhay maxay tahay waxaa laga arkaya taa marka waxaa laga rabaa boolisku inay akhlaaqdooda dhisaan qaab dhaqanka mujtamaca la hagaajiyo macaamilada iyaga shacabka udhexaysa ay noqoto mid fiican oo kugusana waxaa lagu tababaraa qofku markaad qof adoo lugeynaya maanta oday tukubayo oo socdaan la aada soo agmarto inaad aadan dhaafin oodan baasin aad intaad istaagto tartiib aada
aad isaga u daba socoto si uu u dareemo waxaad u tahay iyo waxaad u qabanaysa. marka waxaad ogaataan muraayadda mujtamacu dowladnimada ka fiiriyaan waa booliska. waan idinka mahad celinayaa, waanan idinku abaalmarin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. laakiin waxaan rabaa inaad sii labalaabtaan oo ay noqoto shaqada aada haysaan aada ogaataan dowladda iyo shacabka cidda u dhaxaysaay inay booliska tahay. waxaan rajaynayaa in ciidanku ula qaadan doono ulo oo qoryaha xataa dhigi doono marka amniga sida aan doonayna aan u gaadhno. war waxaad ogaataan boolis shaqo fiican baad ku jirtaan, inaad sii labalaabtaan baa la rabaa. waan tixgelinaynaa waxbarashada, kuwa saraakiisha joogana waxbaan baraynaa, kuwa aqoonta le waan keenaynaa. waxbarashadu muhiim bay u tahay. aada iyo aad baad u mahadsantihiin.